السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة هذا خيارتك وحنا نشارك الصومالي نتوي كلاس روم حين نسوي كل سكيل مقابعكم بتيا بلاس كاران شابتر كيش هذا المانطة بلاو دونا نهضوا الله يدمان شابتر كين الشهر وحنا نقول دونا نتويك بيسيكس أما واحد الله يقانو نتويك فاندامنتالز أما واحد الله يقان نتويك برينسيبلز أما واحد الله يقان نتويك محل يكرهنا نتويك بيسك وحول بالي لغة عربية الله يقان أساسيات الشبكات لغة الصومالي جانا نقول نسهدوا الله يمو barbilowga cilmiga network horta cilmiga network-ka waa cilmi ama waa fiil gooni ah oo madax banaan sida web developing-ku uu fiil gooni u yahay programming-ku uu fiil gooni u yahay security-ku fiil gooni u yahay ayaa waxa loo yaqaan networking-ku uu fiil gooni yahay marka inagu maadaama committee A+ aan marayno waa faham guud ma ka bixin haddii aad network plus kana xoogaa ka sii baratid waxa jira course ah loo yaqaan committee network plus oo YouTube ku jiro 20 chapter laakiin inagu waxaan rabnaa in waxa loo yaqaan network ina faham guud ka qaad ee bixinaan sidoo shaqeeya sidan iyo si guud ahaan oo laakiin xil dheeraashada u baahan tahay waxa jira silsilad dheer oo committee network plan ka malumsa CCNAD CCNBD CCIED CWAD iyo hal majar ilaa halkaas ay qulqulaysaa marka inagu yaan ardaygu si ugu la fahmiyeen mooy waxaan dhigaynaa inuu yahay networking-kii oo magaranaysa barbilo la dhamay laakiin waxa weeyaan maxay si leela fahmo waa inuu iska dul marayna ama waa faham guud inaan ka qaadano ilaa ciwaanka baad ka garanaysaa sababta chapter-kiisa network basics weeyaan waana Cabdi Xuseen Ducaale aan ku soo dhawaano chapter-keena shanaad okay ugu horeyn waxaan imanayna waxa loo yaqaano waa maxay waxa loo yaqaano network waa maxay network waan eegi doonaa okay aan ku soo celino waxa loo yaqaano network waa maxay haddii network lagu weydiiyo network af Soomaalihan badan ardayda soo dhiga jirtay cilmiga diinta ama shariicada shay walba marka la taariifinayo luqatan wasilaahan baa loo jiray soo ma xasuusto waxa leeyahay network marka luqad ahaan la eego erey ahaan network wax isku xidhan ayaa loo yaqaana saad garata maaha marka sida magiisa kaaga muuqata netna waxa laga keenay waa baashi loo jiray shabakada ama kareecada workna waa shaqo isku xidhan tusaale waxa leenahay family network qoys isku xidhan waxa jira xaafad xiddigta ku taala waxaan dhaho urur xaafad xiddigta ka dhisan oo loo yaqaano women integrated network waa shabakad dumar isku xidhan waa shabakad isku xidhan maxay dumarka marka network waxa loo yaqaano wax oo midooba loo yaqaano network af Soomaali meel isla garan waayna haddaba network muku sida uu yahay waxa jira waxa loo yaqaano computer network inagu ka waramayno urur isku xidhan iyo dawladda isku xidhan iyo urur isku xidhan waxa ka waramayna computer network waan ka waramayna computer isku xidhan bayna ka waramayna okay haddoo computer network maxaa tahay waxaan leenahay computer ama waxaan dhahnaa network hadaan qeexno laba iyo wixii ka badan oo computer midba midka ku xidhan yahay ayaa loo yaqaanaa network silafaan laba iyo wixii ka badan oo computer oo isku xidhan baa loo yaqaanaa network tusaale mobile-kaaga anaad maanta intii waxaad ugu tiri Cabdi waxaan ka rabaa baad ugu tiri fanbroach ugu dambeeyay tusaale fanbroachki ii soo dir baad ugu tiri refilki raaju ii soo dir waan ku soo diray inta aniga faylku ama video-ga iga soo baxay adiga computer-kaaga ku socdo dhexdeena waxa ka dhaxdhisan labadeena mobile network sababta waxa leeyahay soo labadeena computer isku xidhna maadaama xisbidaarsin isku xidhna sadartan network baa ka dhaxsamay si kale meherada dhex joogta waxaad istiri wariyaan waxba dhageysanaysaa ama waxaad dhageysanaysaa andhaho muxaadaro Sheekh Xasan ama andhaho Sheekh Xasan Xuseen Aadam ay dhageysanaysaa ama sheekh kala badhe dadka waxa tir wadadkiina kuma qalin baastiri waxa soo qaatay earphone-nadii dhaga la gashan jiray bluetooth-ka isku xidhay dadna bluetooth isku xidhay waxa leenahay samiicadaada dhaga gashatay iyo mobile-kaaga network baa ka dhaxay waayo waxa leenahay inuu ka dhaxay waxaan ku garanaynaa samiicadaada miyaad dhageysan karaysaa haddii aad computer-kaaga mobile-kaaga bluetooth-kiisa baqdiisay joogto ma sida darteed waxa leenahay network baa ka dhisan si kale hadaan ka dhigno mobile-kaaga yar iyo computer-kaaga rabtayna wuxuu kala dirtid computer-kaaga waa USB xariga ka soo jida mobile-kaaga geliso xarabtayna filin oo kale ama filin waxa ay horboodo maxay quraan oo kala rabtayna isku kala wadaarso kale waxa leenahay soo quraanku soo dhaxmari ma xarigo soo computer ka soo bixin mobile-kaaga ma sida darteed mobile-kaaga iyo computer-kaaga wax ka dhaxay waxa loo yaqaan marka network meel fog ka raadinay waa laba iyo wixii ka badan oo computer wada xidhiidhaya maxay wada xidhiidhayaan sababtu waa maxay miis dugsanayaan ma alla bari bay ku jiraan waa maxay jawaabtu waxa weeyaan to share resource si isku wadaarsadaan khayraad ama midoobaan oo khayraadkii maxaa kamid ah faylaynina isku wadaarsadaan oo kale
inay video way isweydaarsadaan oo kale, inay codad isweydaarsanaan oo kale, inay xog isweydaarsanaan oo kale, inay internetkii wadaagaan oo kale, inay adigu each shay waxba kaama gelin ciddii doonta wixii doonaa isweydaarsadaan soo laba computer isku xidhan maha waxaan leenahay maxay waa network. Okay, haddaba network maxaa faa'iido ku jira miyaan iska dayno oo computer walba goonidiisa u yaalo? sababta waxaan leenahay haddaanu network aanu jirin file horta layskuma direen. markaa faa'iidooyinka network waxaa ka mid ah file sharing, file baa la iska wadaagayaa, hardware sharing, qalabyo la taaban karaa la isla wadaagaya. tusaale haddii waxaa loo yaqaanaa aanu jirin networkinku oo maanta halkan oo kale xafiis oo kale la furay, xafiis baaba la furay, xafiiskaaga waxaa yaala 100 computer baaba yaala, 100kaaga computer waxaa loo yaqaanaa network haddaanu jirin oo cid walba u baahan tahay wixii loolan jiray daabacad, waxay dhignaan qof walba in daabacad gooniyo soo iibsada miyaan hayn, qof walbaaba in daabacadiisa laag dhigo. laakiin marka network aan yeelay waxay noo dhalanayaa 100kii computer hal ka dhaxeeyo hal printer, halka printer ay ku soo xidhmaan, marka hardware-kii baa la wadaagaya. sidoo kale faa'iidooyinka network waxaa ka mid ah loo yaqaan application sharing, applicationadii baa la wadaagaya, applicationada sideeya sida Facebook iyo kale. Facebook waxa uu ku base gareysan network waayo maadaama aanu inta Facebook aan soo galo adna Facebook dhan ka soo galayso oo chat naga dhaxdhacayo waxa leenahay network aynu saamaxay. haddaanu network aanu jirin Facebook asina ma jireen, bluetooth kaana waxaan jeedaa YouTube kaana waxba lama soo dhigeen, hadduu alla idmana soo dar TikTokna ina ma dhex fadhideen cid walbaaba hadday rabteen wax iska duubto inuu rabo inuu file kale ku diro wuxuu ku oran lahaa mobilkaagu soo qaadi lahaa si intuu iska duubo si koon lahaa mobilkayga iga daawo. laakiin maanta wuxuu leeyahay tukiisa uu ka duubo inuu kaaga la wadaago isagoo network soo dhaxmarnaya. sidoo kale faa'iidooyinka network waxaa ka mid ah internetkii baan gaarayna oo internetku waa maxay? haddii maanta aanu internetka waxa loo yaqaan network haddaanu jirin internetka inama gaadheen, internetka inama gaadheen. sidoo kale marka network sameynay waxa dhacay waxa loo yaqaan centralized software management, networkeeni oo dhan bar laga maamulo ayuu yeelanay ama shaqadeeni oo dhan. oo macnaheedu maxay ka dhigan tahay? haddii shaqada tusaaleyn ku noqo haddii meel 100 computer ku yaalaan 100kaaga computer saaxiibkayo lagu yiraahdo kalimaanta ku shub waxa loo yaqaan OS ama operating system kala ku shub oo aanu network aanu jirin, macnaheedu waxay ka dhiglaan computer walba dul qabo operating system-ka loo yaqaan nooca ku shub. laakiin maadaama network soo baxay waxaad sameynaysaa computer loo yaqaan centralized ama server kaas aad ku shub operating-ka si automatically kuwa kala uga dhacay. marka shayadii oo dhan waxa yeeshay maxay? bar xukumid ila socotaa. si kale haddaan kugu soo dhigaatay dadkii beriga hore ama asxaabtii beriga hore tagi jiray meelaha internetka laga galo inuu network faa'iido leeyahay kala ka sidka dareemisay. haddaanu network aanu jirin oo ninka meelaha loo jiray Saudiya laga gali jiray internetyada oo kale, haddii aanu network jirin baan leeyahay oo computer aad fadhidid oo ninka adigu ku oran jiray iisoo daal 45 minutes ama 46 ama hal saac iisoo daa. haddaanu network jirin isaga computerkaaga dulmala suu ku furi lahaa ma doono markuu kaa xidhay intuu computerkaaga dulmaadu kaa xidhay. laakiin maadaama network la fadhiyo isagoo computerkiisa fadhiyo kaa xidhay sooma isagoo computerkiisa fadhiyo kuna furi kuna xidhay. marka wixii baa centralized noqday ama yeesho wax loo yaqaan mandaqati almarkaziya bar xukun. sidoo kale diskigeeni ama hard diskigeeni ba inoo safe garoobay si inuu safe garoobay. marka aanu network jirin cid walbaaba waxay laazim hadduu rabo inuu xafeeyay inuu save gareeyo inuu computerkiisa ku save gareeyo. laakiin maanta network samaysay cid walbaaba waxa ku laazima computerkiisa markuu faylku ku diyaarsado meel loo yaqaan server oo aan gaari doono serverku wuxuu qabtay wuxuu yahay ayuu geynaya halkaas lagu kaydina. marka hard diskida computer ku jira amnigoodiba iyo naga buuxsamaya. faa'iidooyinka ku jira faa'iidooyin kale ku jira network waxa weeyaan waxa kor soconay waxa ama kor u kacaya performance hawlkarnimadeeni. oo marka hore haddaanu network aanu jirin oo saaxiibka maantadan uu ku yiraahdo isagoo magaalada Burco jooga saaxiib waxdiisa ii keentaa faylkii hebel macnaheedu waxay ka dhiglaan lahayd intaad soo qaadid flashti waad computerkaaga gelisid oo inaad gawaadhida inaad u saartid baxay loo yaqaan bariya galbeed uu isaga geeyo markuu faylku ka soo dhamaysto uu ku soo celiyo flashtaadi. laakiin maanta adoo network maadaama uu jiro waxaad leedahay saaxiib WhatsApp-kaaga igu sheeg ama Gmail-kaaga sheeg dadna Gmail-kaaga ku diri Gmail-kiisa ku diri waxa leedahay networking-ka saamay. sidoo kale network wuxuu ku saamay waxa loo yaqaan remote access, shay ka fog inaad gaari karaysid oo maanta ma isweydiisay dad badan oo guryooda ka shaqeeya
ma ay dhacdeen haddaan network aanu jirin oo macnaheedu network wuxuu ku saamaxayaa adoo gurigiina dhex jooga inaad shaqo heblaayo ka shaqayn karaysid oo meel heblaayo ku taalo laakiin haddaan network jirin oo magaalada halka ugu dambaysa shaqadu ku taalo waxay ahaan lahayd inaad tagtid faa'iidooyin badan oo intaan ahaynba lagu soo koobi karayn ayaa networkinka laga dhaxlay fideoga soonta ku kulmi doono waxaan ku kala tegi doonaa salaanta salaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu